iyadoo dhawaan waddanka Djibouti lagu doortay madaxweyne cusub oo ay yeelato jamhuuriyadda Soomaaliya loona doortay Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa soo baxayay fikrado kala gedisan oo ay ka bixinayaan dhammaan shacabka Soomaalida. haddaba xubnaha jaaliyadda Soomaalida ee ku nool waddanka Holland ayaa ku cabiray fikradooda sida ay u arkaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya loo doortay. Rahmaan Rahiim magacayga waxaa la yiraahdaa Maxamed Weli Cabdiqaadir Maxamed Sharci. waxaan halkan ka salaamayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay ku nooshahay. anigu waxaan ka tirsanahay dadka ku nool dalka Holland. waxaan halkan rabaa in aan ogaado in aan ka sheego madaxweynaha ku meel gaarka ee loo doortay dalka loo doortay Soomaaliya madaxweynaha dawladda federaalka Sheekh Shariif Sheekh Axmed mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed waxaan leeyahay hambalyo. teeda kale waxaan leeyahay mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed 18 sano Soomaaliya waxay ku jirtay rafaad iyo dhibaato iyo wareer iyo dhimasho iyo baaba tahriib iyo wax lamid ah. mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed wuxuu ogyahay nin arintaasi wax ka qaban karo maadaama la soo tijaabiyay muddo 6 bilood oo ahaa gudoomiyihii hore ee maxkamadihii islaamiga ahaa mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayadoo dadku abaalkaas ama arinkaas ay danaynayaan ayaa dad badan waxay go'aansadeen in ay u magacaabaan macnaha dad badan waxay u arkaan in loo doorto madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya. marka sida awgeed anigu fikriyan waxay ila tahay ninka aan isleeyahay Soomaaliya arrimaha maanta haysta waxa uu ka qaban karaa ama ha noqoto dhinaca diiniyan ama ha noqoto dhinaca bulshada. marka laga hadlayo dhinaca baaba ama dalka burburka faraha badan ee ku yimid wuxuu u baahan yahay dalkaani dad ku maamulo shariicada islaamka iyo Soomaaliya dhaqamadii walaaltinimada ahayd ay ku wada nooleed meel walbana ay ku wada joogtay. rahiim aniga Cali Daahir Ciid kana mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ku nool waddanka Holland. waxaan rabaa inaan ka dhiibto fikradeyda doorashadii sida dimuqraadiga uga dhacday magaalada Djibouti ee waddanka Djibouti isla markaasna uu ku guuleystay madaxweynenimada Sheekh Shariif Sheekh Xasan Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaan ka wadaa aad ayaan u taageersanahay midii ka soo baxay doorashadaas. sidoo kale waxaan ugu baaqayaa shacbiga Soomaaliyeed inay aad u soo dhaweeyaan oo ay ka faa'iideystaan jaaniskan oo ah jaanis qaali ah. tan kale qoryaha mucaaradka waxaan ugu baaqayaa in ayagoo danta bulshada iyo danta guud fiirinaya ay soo fadhiistaan miiska wada hadallada wixii ay tabanayaan miiska wada hadallada lagu dhameeyo oo aysan fiirin dantooda qaaska ah. talo ku socota Sheekh Shariif ayaan halkan rabaa inaan ka gudbiyo taladaas oo ah in uu soo doorto ra'iisul wasaare khibrad leh isla markaana ka bixi kara howlaha adag ee hor yaala. ra'iisul wasaarahaas waa inuu ka dhisan yahay dhinacyo badan siyaasadda dhanka militariga khibradna u leeyahay isla markaana ka soo shaqeeyay dawladihii hore ee Soomaaliya uusan ahayn nin aan Soomaaliya aqoon badan u lahayn. shacbiga Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan u baaqayaa inay taageeraan dawladdan Soomaaliya noolaato. aniga ugaas Cabdi Geer oo ku nool dalkan Holland waxaan fikradeeda haddaan meeshaan ka dhiibto waxaan u arkaa doorashada ka dhacday Djibouti inay ahayd mid oo si xaq ah ku dhacday oo doorashadana ay doorteen madaxweynaha baarlamaanka inay wax fiican ay sameeyaan doorashada ay doorteen madaxweynaha Sheekh Shariif. waxaan jecelnahay inuu dalka wax badan iska bedeli doono oo wax badan horumar fiican aan gaari doono maadaama oo ay doorteen nin u halgamay dalka oo ah mana Abshir Abdi Magaagay may waa Abshir Abdi Xaaji Axmed Ali Ere mayna ku suguna wadanka kan ee Holland iyo meel alxamdulillah ku suguna meel alxamdulillah aragtiday tiire ee ya alxamdulillah inta ka dibide oo meel alxamdulillah geeka Soomaaliya meel madaxweynaha Lindoordi Sheekh Shariif Sheekh Axmed ya meel alxamdulillah ya aragtiyada tiire inta ka dibide fadasana aragaw may waa alxamdulillah Sheekh Shariif lan oo meel alxamdulillah aadna inda yar waayid adeer oo alxamdulillah usoo qobadi shirka yan eed alxamdulillah ya meel alxamdulillah in ka faraxsana halkaas usoo qobadina alxamdulillah ila ka faraxsana maadaama oo alxamdulillah reer Holland intii meel alxamdulillah geeka ee wadanka Netherlands ku nool alxamdulillah ila ka faraxsana teeda kale lama meel alxamdulillah
may codsadaan oo alxamdulillaah sheekh shariifna alxamdulillaah oo una kala taliye lahaayay meel era wadanka Soomaaliya meel alxamdulillaah burbur badan meel eran ka dhiyay meel alxamdulillaah awlaada la kuwaay meel alxamdulillaah waalidiin la kuwaay meel alxamdulillaah dhibaato iyo rafaad iyo burbur la mari geek wadanka Soomaaliya kaliya may baahanya in oo maana meel alxamdulillaah nabad la kanagadi oo alxamdulillaah nabad halan dadka shacabka Soomaaliya in nabad halan walaay qurburoog iyo walaay oo meel alxamdulillaah oo wadanka rogob in oo maana halan nabad oo meel alxamdulillaah bilaaran halan meel alxamdulillaah limbahanya ciidan Mukhtaar Maxamed ah hadii aan ka hadla araahdeeda madaxtinimo ee ka dhacday dalka Djibouti waxay ila tahay madaxweynaha loo doortay ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Ahmed sida ayaan ka qabo ninkaas fikradiisa iyo qaabkiisa wixii markii ugu horeysay aan barnay 2006 ninkaas wuxuu ahaa nin nabad iyo wax walba keenay inuu adduun weyn oo dhan soo fiiriyo dalka Soomaaliya haddana wataan in Ilaahay xamdigiisa oo noqdo maanta ninkii loo doortay dalka Soomaaliya oo noqday haddana waxaan ka rajaynaynaa in uu nabadii sidii ay markaas u bilaabatay dalka Soomaaliya u bilaabatay oo horkacdo sida oo hadan la shaqeeyo dadkii u soo halgamay dalka sida Nuur Cado kaleetood Ahmed Weli Cabdallah kaleetood dadkaas oo kaleetood inay la shaqeeyaan hadeertaan shir ka dhacay hay'adda dalka Itoobiya kaleetood inuu fikrado fiican iyo araaf fiican oo meeshaas ka gudbiso doono madaxweynahaasna oo adduunka la shaqeey doono markii insha Allah waxaan jecelnahay Soomaaliya maadaama 18 sano ilaa 20 sano ay nabad la'aan ay ahayd hadeertaan inay ka dhacdo nabad fiican Sheekh Umar isla markaasna Soomaaliya ku nool wadanka Holland waxaan halka waxaan meesha ka cabiraya fikradda macnaha aan ka qabo doorashada Sheekh Shariif Sheekh Ahmed madaxweynaha dalka Soomaaliya waxaan u arkaa in ay wanaagsaneed waqti munaasab ah uu noqday madaxweynaha dalka Soomaaliya loo doortay asagana waxa uu sheegayaa Sheekh Shariif waxaan ugu hambaleynayaa madaxweynaha xilka uu qaaday inuu Ilaahay u fududeeyo Ilaahay waa ugu baryayaa midda kale labaad waxa uu sheegayaa isaga waxaan macnaha u sheegayaa in dalka uu ku maamulo sida asaga uu sheegay shariicada islaamka taas waxaan filayaa in aan ka wada dhargeyno qolooyinka mucaaradkan waxa uu sheegayaa ayagana in aysan muqaddas ahayn haddii aniga aan kitaabka wax ku xukumi waayo cid kale wax ku xukumaysa male taas waxaan ka leeyahay in iyaga aysan ahayn nabi uu Ilaahay soo diray qof kasta oo Soomaali ah isla markaasna haysta diinta islaamka oo wadanka wax ku xukumi karo marka waqtigooda ha sugteen Sheekh Shariifna waxaan kula dardaarmayaa isagana in uu ka doorbido xabad inuu wax ku xalliyo wada hadal inuu macnaha wax ku xalliyo dalka Soomaaliya maanta uma baahna xabad wuxuu u baahan yahay in dalkii dhismo u baahan yahay dadkina 18 sano dhibaatooyin weyn ayaa haysta waxaan anigu magacayga Daawud Maxamed Shaqaale yiraahdo Daawud Marcadana la yaqaano waxaan rabaa inaan fikirkayga ku aadan aan ka dhiibto doorashada madaxweynaha Sheekh Shariif Sheekh Ahmed waa soo dhaweeyaha madaxweynaha doorashadiisa waxa uu shortaalana wax aad la soo koobi kara ma aha laakiin meelo badan oo inta ka sii dhib badan oo ka soo gudbay hadda waxa laga yaabaa tan inuu ka sii gudbi doono laakiin waa in anaga aan garbaha qabanaa waxaan kale u taxsiiyaha ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan ugu taxsiiyaha dhibka badnay oo u geystay cadawga Soomaaliya ay leedahay waa Ethiopia marka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa isu soo dhawaada meel walba aad joogtiin madaxweynahana aan la shaqeyno nabadana aan ka shaqeyno taasaan dhihi lahaa madaxweynaha laftirkiisa inuu dadaalo laga rabaa oo kiil badan dusha ka saaran marka madaxweynaha waxaan dhihi lahaa hal shir baan rabaa inaan hadalkayga ku soo gabagabeeyo sheekh waxaan dhihi lahaa darya wadaaya dawligeed aad dushaada saaranee dadaal haddaan mar labaad ku celiyo darya wadaaya dawligeed aad dushaada saaranee dadaal sheekh saasaan dhihi lahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh doorashadan la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya ee loo doortay Sheekh Shariif Sheekh Ahmed ayaa qaar far badan oo ka tirsan shacabka Soomaalida waxa ay u arkaan in ay wax ka bedeli doonto dhibaatada iyo dagaalada sokeeye ee muddo ka soo jiray wadanka Soomaaliya Maxamed Abuukar Sheekh Xasan Maxamed Deeq Universal TV wadanka Holland